بسم الله الرحمن الرحيم mararka qaarkood baraha ama macalinka ama qofka markaasi shaqada macalinimada ku cusub in badan sabuurada wax ku qori jiray waxa dhibayso sadarka sabuurada qoraalkii gaar ahaan maanta waxaan ka hadlaynaa qoraal ku saabsan laatiinka ama qoraal ka soo bilaabanaya min al-yasaar ila al-yamin oo loo yaqaan laatiin marka wax dhib lama aha qofku waxa la rabaa qoraalkiisa haduusan tadbiiq badan sameeynin hadhow waxa dhacaysa qoraalkii asoo wax taariifinayn taariifka hoos aado wixii qoraalkaas dhax galo si arintaas u dhicin waxa fiican marka qofka inuu tababar badan sameeyo gacantiisa miisaan ku socoto si sawirkiisa u tooso mana awoodi karo maanta inuu xariiq sameeyo xariiq qudul qoro oo waxa way 10 badan oo qoraa macalinkii ama qofkii kala saaciday wax baray marka insha Allah ta'ala waxyar baan iska soo leeynaa marka koowaad wax qoraysi isku day gacantaada inay aad u adkeenin aad u jilcin la socoti meelaha aad maraysid si qoraalka uu san kaaga qalloocin miisaan ku socoti haddii laakiin isdaas waxa dhici karta in hadhowti ay kula fakarto salahan inta wax ka bilaabaysaa farqurxinta waa toosanahay waa muhiimada koowaad oo loo baahan yahay in uu siiyo bartaha qoraalka waxa muuqda xogaa inaan marka aad la socon karto miisaankiisa bartaha waayo waxaan leenahay hadaba waxaa habboon dhammaanteen in aan xooga saarno barashada farqurxinta marka hadda waxaa muuqdo sadarkii noo toosay yahay in ka soo xogaa labada sadar dhaxdooda ay ka muuqato kala fogaasho taasna waxa yeelay sabuuradii oo meel hoos taalo laakiin qofkii waxa laga rabaa inuu gacantiisa si miisaaman degan u wado si uu toosto marka tadriibkaas waa isku dayay waa qore si hadhowtay kaga haloobin qoraalkaaga
وسكاغا قلقلوعا وبالله التوفيق